saaxiibyaal xaafadda caalamka ayaa waxaa 24 saac ee lasoo dhaafay hadal haysaa warbixin newska iyo kaamarooyinka caalamka oo wada taagan lasoo qarxiyey oo ah ninka hogaamiye Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo si toos ah hadal fadeexad u dhahayo haweeneyda hogaamiyey dalka Talyaaniga oo uu weliba la kagabano madax waaweyn oo caalamka ay joogtay hadalkaas oo ama gaag saxaafadda xitaa ku noqday hal mar la wada yaabo la wada qoslay oo kaamarada waxay soo qabanaysaa madaxweynihii Faransiiska oo qoslayo yaaban marka waxaa la isweydiiyay hadalkan ma inuu fashil ugu talagalay naagtan mase qaab darro kale ka eedo madaxweynaha Turkigan qaabka hadalka loo qabsada aqoon mase waxbaa la isweydiiyey balse marka hore bal horta hadalkiisaan daawanaba I saw you coming down from the plane. Uçakta inerken görmüştüm We arrived sizi. together. Beraber geldik, intikal ettik havalimanına. Is everything okay? Her şey yolunda. İyi gördüm. You look great. Oh, thank you. Ama Very kind. sigarayı bıraktırmam lazım. But I have to make you stop smoking somehow. I know. I don't want This to kill is somebody. impossible. Yeah. hadalka lama xishoon toos ayuu u leeyahay waa inaan waxaas kaa joojiya waa inaad balwadda aad isticmaasho aan kaa joojiyaa hadalkan gaf toos ayuu ahaa oo ula jeedala sida saxaafadda qaar ay qoraalka ku sheegayaan halka dadka kalena ay leeyihiin macnaha waa kasoo fakatay ra-iisul wasaaraha xariifada ee Talyaaniga iyaduna waa iska qosashay madaxa iska luxda bas ilaa waxay isku ogdahay waa horuun u ogaa asaga marka ra-iisul wasaare Erdogan ayaa waxaad moodaa inuu wax ka damacsanaa ra-iisul wasaaraha Talyaaniga isla markaana uu ku hor ceebeynayay saxaafadda madaxda waa ogdahay kulli hadda madax lagu hor ceebeyay laakiin saxaafadda ayuu ku hor ceebeeyay taasoo ka dhigan fadeexad weyn oo ah inay sigaarka cabto macnaha madaxda caalamka inta badan balwadaha diiba leeyihiin ba u qarsan yihiin haddii kalena badankooda balwad male waayo dad hogaaminaa waxoo macnaha maxaan ku yidhahdaa wax loo dhiibtay macnaha balwad yar inay ku mashquulaan ma inta badan madaxda caalamka waa yar yihiin marka madaxda wasaaqiinta ah oo sida ra-iisul wasaaraha Talyaaniga kale marka laga soo tago waa yar yihiin inta balwad isticmaasho Erdogan asagu nafsad ahaantiisa qof markaasi daalan uu ekaa markaas soo degay wuxuu ka qayb galayay shirkii Sharm el-Sheikh ee dhexdhexaadinta ahaa ee ka dhacay dalka Egypt marka saxaafadda caalamkuna waaba maxashoodayaal ayaguna sidoodii usoo qaateenba toosay usoo qaateen iyo warbaahinada kala duwan soo dhigeen social media iska dhex wareegaysa ayaanta inta badan waxyaabaha qaar xitaa haddii warbaahintu aysan toos uga tabin xaruntooda waxay soo dhex dhigaan social mediahooda baraha platformyada ay ku leeyihiin social media waxaaba ceeb ugu filanba iyadoo dalkeedii laga daawanaa oo dadkeedii daawanana su-aashaas la weydiiyey